قال دنتي ويقانا مثالك ugu fududna waa ka daan soo qaadanayo Turkiga waxa laga sameeyay meeshan xuduuda Suuriya ay kala yihiin dhinaca waqooyi bari ah niman Kurdiyiin ah oo Mareykanku uu sameystay oo hubeeyay oo ugu tala galay inuu ku kala gooyo Carabta iyo Turkida mar walba waxay ahayd kelida oo Turkiga oo kuwa gaalada ah ay kolba ka duraan kelida ka joogjoqaynayaan kuwan ay ku soo dirayaan wadankiisa dhibaato gaarsiinayaan sayid wuu ku rafaaday marka xugo aansaday marka waxaan hoosta laga soo geliyay inuu iska fogeeyo si meesha ay meel nabad u noqoto midda kale dadkan ay soo eriyeen ee Carabta ah ee Sunniyiinta ah ee Turkiga ay isleeyihiin Sunniyiin muslimiin ay isleeyihiin oo dhulkooda laga soo saaray oo qaxootiga Turkiga ku ah oo malaayiinta ah inay dhulkooda intuu ku celiyo meeshan ay degaan xur marka ay yiri suga xuduud ilaa 30 kiiloomitir oo dhinaca iyo geesaha kale ayadana intuu go'aansaday ayaan soo xiraaya qaxootiga Suuriya waan ku soo celinayaa Kurdiyiintan ay nagu soo hubaynayaan Mareykankuna meeshan ka bixinayna meesha kale doon ha aadeen dagaalkii markuu bilaabay oo saar loo arkayba maalmihii kood way yar qeyliyeen bal inuu ka joogsado tuu ka joogsanaya qof markuu go'aan gaaro waa inuu hor u socdo afmaamay waxa la yiraahdaa lan uur nugul adin mudubow nin waxa laga wadaa qof markuu calool jilicsan yahay oo uur jilicsan yahay adin moogtay afmaamay waa sida Ingiriiska oo kale waa British oo kale si kuma jirto ماشي سي أتكو أريتي كتور بس علي هذا مثلا علي صار ملاهي سي ذا كتور علي علي ولا يوم علي لا واي مرة هذا محاتي مثلا برورته وكلا برورته حال عدين ولا عدين برور عدين كتير سوما عدينته سي ذا كتور مرك عدينته معكو صاري مركز مرة عيدان لم أور نقول الدين مدبو من بيرجع العسن وعلاج العسن عدين تان هيلب كانوا برورته مدوا بيكرو محل مركو دبك ساو صاربا فش مركو كسو قادر إنه بيساعدوا ملايا باشو عيلينو كينا مرك محل ربا إن لعب سنين وعدين تلوها يو فش ولي يد بهايسو متى قالوا حالي الدقائق ده مركي لجورو لقلاي سي يعني لوجا ريفو لوجا تنكره أما بولكا بحالو شو بيوكلو biyaha markii lagu shubo inta laga rifaayo way dhimatay digaagadu laakiin markii la jiidaayo codaa ka soo baxaya qiiq ay dhahay marka qofka marka uur nugulka ay sheeganay cabsanayo xoogaasaas qiiq markay dhahdo inay noo soo maleena mar rifi kara marka asna ma loo sameeyay waxa la yiri doorada iyo kii guraasay rifowka la jeed waligeed baqiiq ku haysaaday hawshaada la iska wado rifle adi ayadoo dhogortii aad ka dhamayso maadalka aad ka dhamayso markii dadku ay soo jeestaan oo dhahan waraa qayla naga daaya danteen anaga naqaana idinku nooma yeerinaysaan sidee yeelan Turkiga waxay dhahaan anaga dib meesha naga soo gaaray walaalahan Suuriya dib soo gaaray qaxootay Turkiga ku yihiin waa culays weyn meeshoodan ku celinayna dhulkooda ay dagaayaan haddana Carabta oo Sunniyiinta iyo Turkiga in la kala gooyaan rabaa Turkiyana waxa mabda ka ah Carabta inay isku xirmaan oo maadaama Sunniyiin isla yihiin waxa maanta la baabi'inayo ee la gumeysanayo ee la rafaadinayo ay Sunniyiin taayeen زعيمكي ويناء حرمين كجوجي اللي قربي إنه السنيين تعرورينا السجا أي محاهد اللي باتنا وكي ما طيو حاجة كلام وكسر صفت أو مريكان كو بعض أيوة وعبسنا كالي وردي أوليه والله مريكان كل بقص نقنا عليه مشروع وين وكينا كو لا بس صدق حفر شن وهرد يعني مشروع وحكوا بحس أنت مشروع أنت أسكوا بحس أنت مركي الإسكوب دارو أنت أو مليار أي نقنا يسا مركا إسكب بحي وبحين كرتانة هاي وان بحينا وحوري السعودي والحنوية مريكان كدايا ودكتور نودوجين واسي ساعة لسنين أو كله ساعة أنتوا نوليه وان لسنين هدور دنتنا مقار كان كبحنينا أيوة الساس اللي ليه سومر هنا داوريا نمل لسنة يسد مقار كان اللي مبحيسد ضد كان مسلمين تا سنيين تا يعني زعيم النقونينا ورتركي آوي ماليزي آوي باكستان آوي أنا سكدر سنة دقالة هنا عيدا كان أنا قال إسك علنه جاب إسك علنه هذا أساس نقطة مسلمين إسرائيل هاين لكن محيك وقلت الله من وحوري وقاعد أدور كجوكت يعني مقتي وحكوا كوا واوين وحاكم كوا واوين بعيدك وحلاقي هالدمار كلاقي أما الدبي أيو لاقي وحوري وقاعد مركز مركز على إسكسو الدشاء وعلى إسك قبصة وحوري وقاعد وحي جبتي مالك بعيد وكفي فولي كالنقضي هدو بعيد وجيسي أهان لها حوق يسن وقبيسان أهان لها وقاعد وحسو دوان لها مجرته لكن وقاعد وحي جبتي مالك وبعيد كفولي يوبي وفولي وكالنقضي
marka sunniyiintu waxay jabeen meeshii ardul xaramayn oo asxaabta ay joogi jireen oo nabiga uu ku duugan yahay oo la rabay diinta ay in laga faafiyo oo meeshii muslim lagu dhibaayo war muslimka maxaa loo dhibaaya oo muslimiinta ay wakiil u noqdaan oo ay u doodaan yaaba u doodayeen waata aragteen Soomaaliya tagaaya baasboor wata Soomaaliya ko walaalkiisa oo baasboor Canadian ama Mareykan wato oo ay xajka isla aadeen way soo socdaan waa Soomaali waa walaal waa isku aabo waa isku hooyo laakiin warqadaha ay wataan baa kala duwan kii oo Canadian ka watay ama Mareykan ka watay saadid garoonka looga dago Canadian American ma isla markii gal socole kii walaalkiisa la socday adiga warqadaha ay tus baasboor Soomaali xaq istaaga adiga warninkan aasa soconaa walaalaana sad walaal ku tinkan Mareykan way adna Soomaaliya tahay yay ahayd in la soo dhaweeyo Soomaaliya in la soo dhaweeyo maxaa yeelay waa wadan muslim ah meesha loo socdana waa dhulkii muslimiintu iska lahayn al-masjid al-haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa al-aakifu fihi wal-badi kadegan iyo ka banaanka ka imaanaya muslimiinta iska leh waxa kharashka ay muslimiintu u bixinayaan waa jacayl masaajidkaas ay u qabaan masaajidkuna ma aha hotel ay dad leeyihiin ma aha oo la ijaarinayo waa al-masjid al-haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa cid gaar u qaadan karta ma jirto ummadda muslimiinta oo dhan uu ka wada dhaxeeyaa marka al-muhim Turkiga waxay sameeyeen markay u soo diyaar garoobeen ay soo jeesteen oo dhahan hawshan waan qabsanaynaa Mareykan dantii uu yaqaanay wuxuu yiri aan ku imaado wafdi uu soo diray 5 saacadood la wada hadlaayay waxa lagu heshiiyay nimankan aad la dagaalayso marka hore anaga sameeynay 5 maalmood oo aan meesha uga bixino oo aan kaaga saarno adoon dagaalaminba 5 maalmoodna si hubka waaweyn ee sinay haysan xataa way ka tagayaan ma qaadanayaan maxaa saayidin diiday baxu dhaw waan siina markaas halkaas maanta waxa la soo ambaliinay Turkiga intasarat waxaana u suurta gashay aayadii dhahaysay wakafa Allahu almu'minina alqital yani dagaal inay gasho oo dadka ma fiicino oo muslimiinta yani hadiiba laga maarmi karo dagaal la tatamannu liqaa al-adu wasalu Allah al-aafiya laakiin markay ku qasabto oo meel kale ka baxda aad weydo aqliga iyo sharcigu wuxuu sheegayaa war iga leex inaad aad qofka ku dhibaay marka haday dadku soo jeestaan waa kaas shucuubtu marka maanta way nool yihiin Tunis waa maqlayseeno yani doorashay galeen shacbiga gaar ahaan dhalinyarada ayaa ugu badnaa dadka oo leeynay oo laha annaga xurriyad ayaan rabnaa markaas wixii la yaqaanay ee siyaasadii hore dhan inta laga baxay yaa waxa la soo saaray madaxweyne dhaxdhaxaad ah oo meelna aan ka tirsanayn laakiin wadani ah sifada uu leeyahay ay tahay Tunis oo ogtihiin Faransiisku iyo luqada ay ku hadlaan xataa Faransiisina ay u badnayd oo xataa Carabiga markay ku hadlaayaan waxa jiidanayaan naqmadii Faransiiska Carabigiisii Faransiisku ugu hadlaayaan waa madaxweynaha Tunis ka soo baxay oo luqada Carabiga ee fasiixa ah aan hal kelimo ku soo dareyn oo Carabiga soo ugu hadlaayo oo fasiixa ah aan saameyn lagu yeelan su'aalo la weydiiyo ugu hor waxa kamid ah yahuuda ka waran markaas ay yahuuda Soomaa dagaal anaga dhaxeeyo maxaa yeelay waxay haystaan shacbi ayay gumaysanayaan adduunka dhan saas la rabaa in la dhaho ma aha yahuudu say dadka u sheegayso yahuudnimada ayaana lagu haystaa oo mucaadaatu saamiya yahuudnimada la nicbiya arintu yahuudnimo ma ah ee yahuud waa dhulmiga ay geysanayaan maxaa yeelay wadan islaameed intay qabsay waa quwaatul ihtilaal qarni 12aad ayaa waxay taagan yihiin aan dadkan gumaysan oo ku kor fadhino war dadkan ka kac maxaa kartaan waa Falastiin Turkiga waa ogtii madaxweyne Erdogan intuu qaramada markuu tagay yoo qariyada wuxuu soo saaray yahuud ay ku degtay Falastiin markaas 48 markay soo degeen 47 yahuud bal fiiriya meesha ka joogtay waxyaar markaas maanta xagee joogtaa bini aadamnimada keenaysa in yaani dhaalim la taageero bini aadamnimada ma laakiin islaamka iyo bini aadamnimadaba waxay sheegayaan qofka madluumka in la garab istaago marka shucuubtu waxay u socdaan inay xoroobaan wayna xoroobi doonaan ficlan inagana shucuubtaan baan qayb ka nahayo hadii wax la isdooranayo haday dadweynuhu soo cishtaan ama la helo inay dadku codeeyaan oo intii nabadgelyo la helo la yiraahdo yaa idin xukumaaya soo saara qofka idin xukumi lahaa waxa loo dadweynuhu waxay soo saarayaan qof fiican oo ummadda danaheeda ka shaqeynaya laakiin dadweynuhu waxa ugu dhacay xaqi aan lahayn ee ahay qofka xukumaya asaga inuu doorto mar hore marna burbur ayaan la dooran weynay mar horena waa la diiday oo xoogaa la isku qabsaday ka bacdi waxaan noqonay meel hadda qofku uu ka soo galo soo galo wali inooma fariisanin laakiin waxa imaan doonta xilli dadweynuhu dowrkooda intuu soo noqdo siyaasi kasta oo dadka iska gadaayo oo dadka wax ku soo celinayo oo hadduu dadka iska hagaajin waayo uu kursigiisa u cabsanayo uu leeyahay waan idin shaqeynaya asoo jacayl dad ayna ahayn xataa waa markuu og yahay dadka inuu cod ka rabo laakiin markuu san dadka cod ka rabin wax noo qab hadaa dhahdin waa maxaan kugu fali ayaa meeshan ku taala maxaan kaaga sasaban maxaan kaaga bedel
oo soo inaan ku doorto ma rabtid maya ma doorasho ma in hadda kor waxa leeyahay guriga ilaahay nabad kugu ma geeyo waaba hadaan u socdo dhahay xaqiisa uma socdo marka hadda waa sidoo kale shacabkii laga cabsan lahaa oo dhila war dadka inagu dirina guriga uma ba socdo way macna codba kama barab laakiin ha fogaato ha dheeraato ha socoto waligeeda ugu dambays waxay u tagi doontaa shacbigu wuxuu rabo ida shacbu yawman arada alhayaa fala budda an yastajiba alqad dadku haday inay noolaadaan ay go'aansadaan cid kasta shacbiga ayaa ka xoog badan marka fikradda inay isbedesho oo dadku ay noolaadaan oo ay wadankooda dhistaan oo xor ay noqdaan oo wixii ayaga u dan ah ayagu ay soo saartaan waa mid aan u socono hadii marka taas dadka qaar ay siyaasad u yaqaanaan oo ay misaadka maxaa looga hadlayaa dhahayaan waxaan ku soo gabeynaa xigmadii uu ka tagay Sheekh Xasan al-Banna wuxuu yiri waxa idinka siyaasad ayaad ka shaqaysaan oo siyaasad iyo diinta soo geliseen markaas wuxuu yiri yaa qowmana wuxuu yiri inna nunaadiikum waan idin naadinaynaa waan idin dhawaaqaynaa wal qur'aanu fi yaminina qur'aankuna gacanta midigta ayaan ku haysanaa والسنة في شمالنا سنتنا بالحد أيام كويسنا وعمل سلف الصالح من أبنائنا قدوتنا ذاتك نقول المسلمين تحسيت أنك شكي النبي يا أبو بكر الصديق يا عمر يا عثمان وإحنا قدوتنا وذاتك أنكم دايرين فإذا كان هذه عندكم من السياسة هذا سياسة وتقانان فهذه سياستنا أنا سياستنا وتاس وإذا كان من يدعوكم إلى الإسلام هدو يقفك إسلام كيدنكو يرايا وإلى أحكام الإسلام إسلام كأحكام تيس وتعاليم الإسلام قفك إذنكو يرايا هدو عندكم سياسيا هذا كسياسة وتقانانا فنحن والحمد لله أعرق الناس في السياسة هذا تا سياسة أكتينا كتاي تدك وحي لير سياسة أيانها نوجاده مركنا واساس وحن كهالين والدين ومبادئ وأفكار للرميسية ودتك دنتودا يكون جرتو الدنيا آخرة يكون لبنا إن دين تودا نلاش هذا كو قابيستان إلى إن كل الجليان آخرنا أيجو عمل ونكسر صوص ما يصير ودين تودا الدولة تودا الشعب كودا أيوة في عين لصوص عرب تاسوا ميدان كشقينينه هذا تاسي مركا عيدتك قار سياسة وكسايان والوحي كلا أيوة إسكادن تمد خيانة شقاق قبلين لكن مدة توسين تاه ومدة الغور سايا ومدة يعني إلهي سبحانه وتوفيق هنا وافجيو ومدة يعني إلهي سوسو عليو يبقى الله ينقص صاروا مدة الصومالية دور كإلهان جرتين إلهي سبحانه وتعالى هسيو جزاكم الله خير.